siday wax u dhaceen waxa weeye meel ganacsi ah oo haween la yidhaahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii iyo carruurtoodii dumarku raggu ay la hurdeen iyo meel habeena la galay 2 baan imaka haynaa mawdka intaa iminka la sheegayo in ognahay ee xadaaraha la qoday inta aan la fiirsan baa ka badan dadkaas fal xun baa lagula dhaqmay oo xasuuq ah oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo wax lagu tilmaamo la garanaynin oo tuhraanda ka dhacda ka sii daran dawra la qalo waxba ma ay reebin wax beribageyda ay reebeen ma jirto gacal baa lala ahaa wax dhaqani noo ahaa dhaqan amne noo ahayn mar kala garanayno waan yaabsan lahay hameen hore dhacday waa taa meel dagaal ma ahayn goob ma ahayn haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haynaa waa tahay yaa arrintaasi ka dambeeya qonaad iyo wax ka dambeeya kala garan mayni iyo al-shabaab iyo wax iyaga isku dhex jira wax alla waxay yihiin lama garanayo shacabka kale oromo maba taabanayno balse wixii bay isku dhex jira wax alla waxay yihiin waan soo saari kari laanahay magac oromana way huwan yihiin onaag iyo jimbood sabaati waa ka dambeeya wax la yidhahdaa ka dambeeya maxaa keenay colaadda intaas leeg allahi wax keenay meelo la isku yar hayaa jirtay meelahana hore xuduudaha meelahana horaa loo dhameeyey madaxweynaha iyaga iyo deegaanka soomaaliduba way dhameeyeen iyo oromaduba wax dibahoo ka jirto ma jirto saad og tahayba waktiga maantana nibo maalin buu ilaahay wax siya nibo maalin buu ilaahay reer u furaa nibo maalin buu ilaahay roob u lisaa maanta kililka ilaahay fadli buu dhashay ilaahay waxuu la siiyey leadership buu la siiyey dawlad buu la siiyey madaxweyne daacad buu la siiyey shacabka deegaanka ilaa xuduudda soomaaliya ilaa xuduudda etoobiya wixii oromo ku dhex noolaa xaasha waa biyo qumateen ka dhaafay waa berimageyda baa dhaqanka soomada yidhaahdaa wax la taabtay wax sidaa loo eegayo midna ma jirto amar madaxweynaha yaan soo dhagay amarka madaxweynaha nagu ku shaqaynayna wax walbana amarkana ayaan ka amar qaadana waa tahay waan gartay laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in dadka oromadu ay ka caroodeen oo ay ku eedeynayaan ciidamada liyu boolisku in ay dadka dileen arrintaasi ma jirtaa waa xaasha waa kutilkuteenay shan iyo raad doona aanan lahayn taas waxaa jirtay negayle isku dhac laba qabiile xaggooda waruma hayno wax alla waxay ahaayeen iyo dawlad ma kala garan karo beentu aba waa ka xaaraan qof weyn baa lahay laakiin shacabka halkaa degani qabiil soomaalida qabiiladeena kamid ah iyo booran baa yaa isleeyahay moogta laga yaabo in saa la sheegayo ciidankoodaa ku jiray baa xaggeeda lahaa laakiin liyu boolis baa ku jiray waa kutilkuteenay iyo been raad lahaynay kuwii halkan joogay bay sugayaan si aan amnigooda aana wax loogu yeelin oo shacbigu dadka la qalay ee madaqarka la saaray ee qoorta la beeshayna u gadoodin bay ciidamada liyiga geesiintu ku hawlan yihiin sida ay dadka ay amnigooda u sugayaan dhacdadan u dambaysay ma jirtaa wax waawaan oo socota oo arrintaasi lagu xalinayo aniga kula hadlay walaalkay iga yaro cusmaan cuno isleeya layidhahda ku jira oo igu xigay aad igu xigtay ahaa madaxuna ka maqan yahay baa ku jira hadna wax loo qosaysan ma jirta dawladda iyada uman amarka iyo madaxweynaha iyo uman amarka sugay